kulanti wacan saaxiibada ku xiran barteena YouTube ee Galka Media waxaan halkan idinkula wadaagi doonaa Farmaajo iyo Fahad Yaasiin oo shirqool halisa u dhigay Cali Goodlaw. waa maxay shirqoolka? maxaad isleedahay halka uu daaran yahay? xaaladda guud ee magaalada Beledweyne waa sidee? waxaan guud ahaanba halkan idinkula wadaagi doonaa xog culus. shirqoolkaasi waxa uu yahay, balse marka hore like saar muuqaalka, sii share garay, sidoo kale waxa aad ku soo biirtaa barteena YouTube ee Galka Media innaga oo mar walba halkan kula wadaagi doono warbixinno iyo xogo xogta iyo waliba xaqiiqda markaa ku salaysan. waxaase marka hore ku bilaabi doonaa shirqoolkan iyo waxa uu yahay Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Goodlaw oo xilligan isagu ku sugan magaalada Beledweyne, sidoo kalena doorashada xubnaha kuraasta 25 halkaasi ay si dardar leh ku socoto. waxaase shirqoolkan uu yahay kadib markii kursigeeda la dhaafiyay hoob 135 tirsigiisa uu ahaa Aamino Maxamed Cabdi oo iyadu markaa deegaan doorashadeedu ay tahay magaalada Beledweyne. waxaase xusid mudan in shirqoolkan sidoo kale uu yahay in guud ahaanba markaa dhinacyada Fahad Yaasiin iyo kooxda madaxweyne Farmaajo ay xilligan ku heshiiyeen in kursigaasi la siiyo Cumar Faaruq Cusmaan oo saxafi hore ahaa, sidoo kalena xoghayaha ururka ee saxafiyiinta qaranka ee Nusaj xilligan ku magacaaban. waxaase xusid mudan in kursigani ay markaa waqti iyo juhdi badan geliyeen kooxda madaxweyne Farmaajo sidii loo dhaafin lahaa Aamino Maxamed Cabdi oo iyadu markaa la ehel ah Ikraan Tahliil Awarsame oo markaa la rumaysan yahay in guud ahaanba kiiskii Ikraan baarlamaanka inuu markaa ku soo dhex noqdo laga cabsi qabo, maadaama Fahad Yaasiin baarlamaanka dooran uu xilligan ka mid yahay, iyadoo kursigiisa weli kor loo hayo oo guddiga doorashooyinka ay ku dhagan yihiin. sida la aaminsan yahay qorshahan Cali Goodlaw ayaa waxaa saacadihii aynu ka soo gudubnay gaarayay fariimo u badan dhinaca beeshaasi ka imaanayo oo ah in aan kursigaasi la dhaafin Aamino Maxamed Cabdi oo la rumaysan yahay in kiiska Ikraan ay si weyn markaa ugu dooday marka loo eego waxyaabaha iyo waliba marxaladaha uu soo maray kiiskaasi oo ilaa iyo hadda taagan oo aan markaasi meelnaba lagu sheegin. xogta la helayo waxa ay markaa sidoo kale sheegaysaa in xubno markaa ku hayb gabadha lagu magacaabo Aamino Maxamed Cabdi ay iyagu markaasi xilligan wadaan abaabul ciidan oo ka dhan madaxweyne Goodlaw haddii uu isku dayo in kursigaasi la dhaafiyo Aamino Maxamed Cabdi oo iyadu markaa la rumaysan yahay in matalaadeedii ay ka dhabaysay sida dhinacyo badan ay ku doodayaan oo ay markaa xogta kuwa nala wadaagay ay ka mid yihiin. xogaha sidoo kale la helayo waxaa qayb ka ah in kooxda madaxweyne Farmaajo keliya ay xilligan iyagu juhdiga ugu badan kuraasta taala Beledweyne ee 25 kursi ay gelinayeen maalmihii dambe sidii Aamino Maxamed Cabdi loo dhaafin lahaa kursigaas. waxaase la rumaysan yahay in qorshaha Cali Goodlaw lagu geeyay magaalada Beledweyne uu sidoo kale qayb ka ahaa sidii kursiga markaasi loo dhaafin lahaa Aamino. waxaase markaa ballanqaad uu Cali Goodlaw sameeyay la filayaa in uu fuliyo. odayaasha dhaqanka beesha ay ka dhalatay Aamino Maxamed Cabdi ayaa la rumaysan yahay in ay go'aanka Cali Goodlaw u arkayaan mid markaa ka hor imaanayo ballanqaadyadii dhowrka ahaa ee ay markaa u ballanqaaday Cali Goodlaw. waxaase sidoo kale arrinkan markaa si weyn ugu shaqeeyay sida xogta aynu ku helnay gudoomiyaha la haybta gabadha kursigan la dhaafin rabo ee Aamino Maxamed Cabdi. waxaase la xusuusan yahay in ay isla xisaabtanka iyo waliba dhanka iyo waliba xisaabta qoondada ay isku meel ka soo wada jeedaan, waana markaa qorshaha Cali Goodlaw uu beesha ay ka dhalatay Aamino uu la hortagi doono inaysan markaa isku heli karin gudoonkii baarlamaanka Hirshabelle iyo kursi xildhibaan hal jifo, taas oo markaa mid iyadu markaa lagaga reebayo tartanka sida uu qorshuhu yahay. dhinacyo badan ayaa la rumaysan yahay in saacadihii aynu ka soo gudubnay dadaallo ay arrinkan u sameeyeen ay ku guuldaraysteen
oo xubno siyaasiyiin ahi gabadhaasi abeesheeda marka iyadu ay ka soo jeeday iyagu qayb ka ah waxaase la rumaysan yahay in guddoomiyaha baarlamaanka Hirshabelle Dr. Cabdixakiin Luqmaan Maxamed oo isna markaa waayihii dambe uu si weyn u waday qorsho ka dhanahay gabadhaasi maadaama ay saaxiib dhow yihiin Fahad Yaasiin Xaaji Daahir oo la rumaysan yahay in ay caqabad hortaagan gabadhaasi ku noqotay kiiska Ikraan Tahliilna ay mar walba markaasi iyadu kaliya ay si toosa uga hadli jirtay Fahad oo ka cararaya in markaa baarlamaanka dhexdiisa uu ka dhexdhasho kiiskan maadaama nabad sugidda uu markaa ka wareegay xilligan si toosna baarlamaanka iyo siyaasadda uu u soo farageliyey ayaa waxa uu markaa ka cabsi qabaa in baarlamaanka dhexdiisa sumcadda looga dilo balse waxa la rumaysan yahay ayaa waxa ay tahay kaliya in Fahad Yaasiin Xaaji Daahir uu doonayo in kiiska halkaasi lagu xiro maadaama ra'iisul wasaare Roble oo horay kiiskaasi u ballanqaaday dhankiisa in ay markaa cadaalad heli doonaan qoyska Ikraan Tahliil oo xilligan isaguna markaa ka gaabsaday kadib safarkiisii ee Qatar oo iyadu markaa khilaafkaasi lagu soo afjaray walow uu haatan khilaaf kala dhaxeeyo Fahad Yaasiin Xaaji Daahir uusanna markaas sinaba uga hadlin kiiska Ikraan Tahliil xogaha la helayo ayaa sidoo kale waxa qayb ka ah in durbaba xilligan loolan adag laga dhex markaasi dareemayo baarlamaanka dhexdiisa iyo beesha ay markaa ka soo jeedo ee kursiga leh hoob 135 oo ah Aamino Maxamed Cabdi oo iyadu markaa lagu xusuusto inay si weyn uga soo horjeeday aragtida madaxweyne Farmaajo sidoo kalena xisbiga UPD iyadu markaa ka tirsan ee uu hogaamiyo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxaana markaa ilaa iyo hadda iyadu dhankeedu aysan garab ka helin xisbiga Xasan Sheekh Maxamuud oo waayadii dambe si weyn ugu guuldareysanayay siyaasadda iyo waliba doorashooyinka ka socda dowlad goboleedyada kadib markii kuraastii markaa isagu la haybta ahayd Xasan Sheekh uu dhaafiyay ninka lagu magacaabo Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor oo ah madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug ugu dambeyntii xogaha la helayo waxa ay xilligan tilmaamayaan in guud ahaanba ay socdaan diyaar garow markaa ku aadan doorashooyinka ee 15 kursi ilaa iyo waliba 11 kursi lagu qiyaasay ee ku harsan magaalada Beledweyne 25 kursi ay taalay balse waxa markaasi laga dhursugayaa qaabka Cali Guudlaawe uu u maarayn doono kursiga hoob 135 oo muddo badan ay ku fadhiday xildhibaan Aamino Maxamed Cabdi oo iyadu markaa si weyn banaanka u keentay siro badan iyo waliba kiiska Ikraan Tahliil oo ilaa iyo hadda aysan ka harin guud ahaan daawadayaal intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa warbixinteennii gaarka ahayd ee aynu ku eegaynay shirqool xilligan loo maleegayo madaxweynaha Hirshabelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaawe muuqaalka inoo sheergaray sidoo kale mar kale waxaan markaa kugu dhiirigelinaynaa inaad ku soo biirto barteena YouTube ee Galka Media tan iyo kulan dambe nabadgelyo